halkani waa janalka kulanka wararka daawade waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan uga hadleyno hadalahayn maalmihii u dambeeyay qabsata baraha bulshada oo ku saabsan in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu inta badan iska yeelo hadallada mas'uuliyiinta adduunka taas oo hadalhaynteeda aad u qabsatay qaybaha kala duwan ee bulshada. Hadal jeedinta waa mid kamid ah xirfadaha ugu waaweyn ee madaxda u horseedi kara inay kasbadaan kalsoonida shacabka isla markaasna ka dhaadhiciyaan hadba waxa ay doonayaan oo ay kamid tahay in la doorto. Waa xirfad jaamacadaha iyo macaahidda lagu barto buugaag badanna laga qoray sidaas daraadeed la yaab ma leh in madax badan oo waqtigan casriga ah jooga ay ku wanaagsan yihiin jeedinta khudbadaha marka ay taagan yihiin fagaarayaasha ay dadka badan isugu yimaadaan. Balse Soomaaliya waxaa dhawaan hadalhayn dhalisay khudbad uu jeediyay ra'iisul wasaaraha taas oo la sheegay in uu ka soo minguuriyay khudbado ay hore u jeediyeen madaxda adduunka. waxaa tusaale loo soo qaatay in uu minguuriyay hadallo ay jeediyeen madaxweynayaashii hore ee Mareykanka John F Kennedy iyo madax kale. waxaa aad baraha bulshada loogu faafiyay muuqaal isbarbardhig ku sameynaya hadalkii caan baxay ee Kennedy uu jeediyay ee ahaa ha isweydiin waxa ay dawladda Mareykanka ku qaban karto ee isweydii waxa aad u qaban karto dawladda Mareykanka. ma aha dawladda Soomaaliyeed maxay noo qaban kartaa kaliya waa inay isweydiiyaan annaguna dadka Soomaaliyeed maxaan ku tari karnaa maadaama aan taariikhdaas leenahay. And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Qeyre ayaa hadalkan ka sheegay socdaal uu ku marayo gobolada dhexe. Markaan fiiriyay hadalkiisana gudaha u sii galay ma ahan wax isaga soo maaxday waxaanan fahmay in hadalkiisa uu yahay minguuris ayuu yiri qof kamid ah dadka isticmaala baraha bulshada aqoonna u leh khudbadaha ay jeediyaan madaxda adduunka. hadalka oo kaliya ma ahan waxyaabaha uu matalo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre sida uu qabo falanqeeyo wax ku qora Facebook xitaa habdhaqanka uu ku soo bandhigo fagaarayaasha ayuu sheegay in ay yihiin kuwa matalaad ah ficilka uu sameeyo Qeyre xitaa haddii aad u fiirsato waa kuwii madaxweyne Barack Obama tusaale orodka iyo rucleynta. khudbadaha iyo ficilada gaarka ah ee ay sameeyaan hogaamiyaasha adduunka sida labiska waxa ay galaan diiwaanka dhacdooyinka adduunka balse falanqeeyahan waxa uu isweydiinayaa inay jiraan waxyaabo gaar u ah Qeyre oo galaya diiwaankaasi. diiwaanka waxa uu galaya in uu Xasan Cali Qeyre yahay oo uu noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya balse diiwaanka uma galayaan wax madax kale oo adduunka ay lahaayeen oo uu soo minguuriyay. waxaadna garan kartaa in hadhow lagu mashquuli doono cidda asal ahaan tiri hadalka uu isagu jeedinayay ee aan isagu la xasuusan doonin kaliya waxa loo isticmaali doonaa tixraac ayuu sii raaciyay. dadka khudbadaha minguuriya ee hadalhaynta sababay waxa ku jirta xaaska madaxweynaha Mareykanka Melania Trump taas oo si weyn loogu fadeexeeyay kadib markii ay si toos ah u soo minguurisay khudbad ay jeedisay Michelle Obama oo ah xaaska madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. tani ayaa keentay in shaqadii laga eriyo qofkii khudbadda u qoray. Barack Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden ayaa labaduba kamid ah dadka hadaladooda la minguuriyay. hase yeeshee waxa iska cad in erayo ama xigmado laga soo xigto madaxda iyo dadka kale ee caanka ah balse ay qasab tahay in iyaga loo tiriyo. ma yara dhacdooyinka ra'iisul wasaare Qeyre ku saabsan ee lala barbar dhigay kuwa madaxda kale ee adduunka. waxaa xitaa jira sawirro aad u faafay oo muujinaya habka loo sugo amniga ra'iisul wasaaraha oo la barbar dhigay kan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha ayaa noqday shakhsiga loogu hadal badan yahay madaxda Soomaalida iyadoo aad looga fiirsado lagana falceliyo waxyaabaha uu fagaarayaasha ku soo bandhigo haddii ay ahaan lahayd qaabka uu hadallada u jeediyo labiska iyo ficiladiisa kale. warbixintan waxaan ka soo xignay bogga bbcsomali.com.